بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنتي بداود يلقصوا دوادة برامجورات كجنال كحولك ورارك قضبضة أن ينسوا قدبين دون وحاقيب كنغنية دولة مدحوين حسن الشيخ محمود أو شاعة كقادة وحا لغاية ليو لليرادة توبرك ومغدلك إريتريا والدين تا المحاكمة غنيين أو دولة يولا بوجسها دوام حياتها وركا فرحاد لي والدين تو دولة لو داقيسو فيلا صوماليا أو سيدك دقا وضع شحالة مدحوين حسن الشيخ كدب باريتان لو شيغيو إن مالنتا بريتا ومري دونو xoga kala duwan oo ku saabsan xaaladda madaxweyne xasan sheekh iyo waxa ka soo kordhay ayaan idin soo gudbin doonaa mahad maxamed salaad oo xaadir la xafiiska hay'adda nabad sugidda Soomaaliya haddaba maxaa sabab u ah madaba inuu haleelo caabuqa covid-19 wararkii ugu dambeeyay ayaad ku daawan doontaan barnaamij wareedka janaalka xulka wararka wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo lagu eedeeyay inuu ku tanto qodob ka mid ah dastuurka Soomaaliya ma haysta sharciyad uu ku diidi karo in wax laga weydiiyo dhaqaalaha dalka yaasa mas'uuliyadda qaadanaya waan idin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qodobo kale hadba waxay nagu soo kordha faahfaahintooda ayaad maqli doontaa waxaan ka codsanaynaa haddii aad janaalka ku cusub tahay inaad subscribe like iyo share intuba aad nala wadaagto markaan aan ku bilaawno dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ciidamada dhalinyarada u badan ee tababarka ugu maqan dalka Eritrea dhawaan dalka Soomaaliya ay dib ugu soo noqon doonaan afayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta isla markaana shirkaas jaraa'id ka dhacay gudaha xarunta madaxtooyada ayaa ka hadlay xaaladda dhalinyarada tababarka loogu qaaday dalka Eritrea afayeenka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in ciidamadaas ay dhawaan dib ugu soo celiso dalka si buu yiri looga faa'iideysto waqtiga iyo sidoo kale tababarka iyo juhdigii la geliyay tirada markii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wareejinayay 5,000 ayuu ku sheegay wuxuu madaxweynuhu ku wareejiyay faylalkooda waxaana shaki ku jirin maadaama uu amnigu u yahay waxyaabaha hortabinta u leh dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu sheegay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya afayeenka sidoo kale waxa uu sheegay in keenista dhalinyaradaas ay u baahan tahay waxyaabo kala duwan oo ka yihiin dhaqaale waa la keeni doonaa qorshahooda ayaa socda in 5,000 oo askari loo soo daabulo waxa ay u baahan tahay waxyaabo kala duwan oo ay ka tahay dhaqaalaha ama ugu horeyso dowladda diyaar garow ayay ugu jirtaa sidii wiilashaas loo keeni lahaa loogana faa'iideysan lahaa ayuu mar kale carabka ku dhiftay afayeenka madaxtooyada Soomaaliya afayeenka oo hadalkiisa sii wata ayaa wax hoosta ka xariiqay faahfaahinta ku aadan ujeedada dhaqaalaha iyo haddii uu ka wado sidii loo meel saari lahaa mushaarkooda horay waxaa u jiray warsuuqeed sheegaya in ciidankaas ay u xayiran yihiin dhaqaale balse taas ay cadeemahooda ay tahay mid aanu sal iyo raad midna lahayn sida uu afayeenku sheegay ugu dambeyntii afayeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladda diyaar u tahay in ay la fadhiisato waalidiinta Soomaaliyeed ee wiilashaas dhalay waxa uu sheegay in ay u laaqoojinayaan afayeenka hadalkiisa ayaa waxa ku soo aadaya kadib markii maalmo dhaweyd magaalada Muqdisho ay dibadbax kala duwan ay ka dhigeen qaar ka mid ah waalidiinta dhalinyarada wiilashooda tababarka u maqan wadanka Eritrea kuwaas oo madaxweynaha Soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud ka dalbaday in uu ka caawiyo sida ay u heli lahaayeen ilmahooda oo ka maqan dhowr sano sida ay waalidiintu banaanbaxooda ay ku sheegeen ciidamada loo qaaday Eritrea ayaa la xaqiijinayaa in sanad ka hor uu u dhamaaday tababarkii ay qaadanayeen waxaana jira warar iskhilaafsan oo ku saabsan sababta aanan weli loogu soo celin gudaha dalka Soomaaliya wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa lagu eedeeyay in uu ku tuntay qodob ka mid ah dastuurka Soomaaliya waxaana arrintaani si weyn ay hadalhayn tiro badani ay ugu dhalisay aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa diiday in uu hortago xafiiska xiriirliyaha qaranka oo maanta loo ballansanaa inuu tago xafiiska xiriirlinta ayaa warqad uu soo saaray wuxuu wasiirka ka dalbaday inuu hor yimaado si wax looga weydiiyo arrimo la xiriira maaliyadda oo sida xafiisku sheegay uu baaritaano ku wado wasiir Beyle ayaa diidmadaasi u sababeeyay in xafiiska xiriirlinta uusan awood u lahayn
inuu u yeero, balse qofka kaliya u yeeri kara waxna ka weydiin kara uu yahay garyaqaanka guud ee qaranka Soomaaliya. Haddaba waxaa isweydiintu ay tahay sharciyad mu haystaa wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle inuu diido la wadaagidda xogta maaliyadda xafiiska xeer ilaalinta oo hore uga dalbaday wasiirka. Aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen in wasiir Cabdiraxmaan Ducaale uu hareer maray qodob ka mid ah dastuurka Soomaaliya, waxa uuna sheegay in xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka si guud uu xaq u leeyahay inuu sameeyo baaritaano horudhac ah oo ku saabsan dambiyada kala duwan oo la filayo in ay ku kacaan mas'uuliyiinta kala duwan ee dowladda Soomaaliya. Qodobka 12aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo sidoo kale qodobka 8aad ee garsoorka Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegayaa in qodobka 69aad xeerka habdhaqanka Soomaaliyeed iyo qodobka 10aad ee ciqaabta Soomaaliyeed in markasta loo baahan yahay in la dhowro. mid ka mid ah aqoon-yahanada ayaana qalinka hoosta ka xariiqay in Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu jebiyay qodob weyn oo dastuurka Soomaaliya una baahan in lagula xisaabtamo. 3 maalin ka hor ayay ahayd markii xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka Soomaaliya uu warqad u soo saaray ka dalbaday wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle in uu maanta oo Isniin ah uu hortaga xafiiska xeer ilaalinta guud si wax looga weydiiyo xisaabtan iyo sidoo kale dabagal ay xafiiskaasi ku hayeen. Beyle oo isla xalay warqad soo saaray ayaana sheegay inaysan awood iyo xaqna midna aysan u lahayn xafiiska xeer ilaalinta, balse wixii xoga uu hayo oo garyaqaanka guud ee dowladda Soomaaliya la wadaagayo. Villa Soomaaliya ayaa waxa ay si degdeg ah uga hadashay xaaladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo maanta warbaahinta la wadaagayay macluumaad kala duwan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku saabsan ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka caafimaad qabo caabuqa COVID-19. Afhayeenka ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee madaxweynaha ay tahay mid wanaagsan, wuxuuna xusay in aysan jirin ilaa iyo hadda saameyn muuqata oo cudurkani ku yeeshay caafimaadka madaxweynaha. Waxaan ugu bishaareynayaa ummadda Soomaaliyeed xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah mid aad u wanaagsan, isla markaana aysan jirin wax saameyn ah oo ku yeeshay caabuqa COVID-19, isagoo oo horeyna tilaabadani uu u maray buu yiri Cabdikariin Cali Kaar afhayeenka madaxtooyada. Waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in madaxweynuhu uu si caadi ah u wato howlaha shaqo ee hortaalla, isagoo raaciyay in talooyinka iyo habraacyada caafimaadka loogu dejiyay ee COVID-19 isla markaana korjoogteyn kala duwan ay ku sameynayso wasaaradda caafimaadka. Xaaladda caafimaad ee madaxweynaha wuxuu sheegay in madaxweynaha maalinta berri ah uu mari doono baaritaano kala duwan oo ku aadan caabuqa COVID-19 sida uu ka yahay. Afhayeenka madaxtooyada ayaa waxa uu horay u sheegay in madaxweynaha uu qaatay tallaalka caabuqa COVID-19 ka hor inta uusan cudurkani ku dhicin, taas oo yareysay saameyntiisa cudurka. Ugu dambeyntii, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya wuxuu sheegay in maalinta berita ahna ay noqon doonto baaritaanka madaxweynaha uu mari doono caabuqa COVID-19. guud ahaan barnaamij wareedka janalka xulka wararka intaas ayaanu ku soo afjareynaa. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena, waan idinkaga mahad celinaynaa. mahadsanidin.